Carruur badan oo Muqdisho ku nool ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ka shaqeysta magaalada Muqdisho. Xeebta Lido waxaa kula kulmay dhowr carruur ah oo maalmaha ay fasaxa ay yihiin ka shaqeysto xeebta iyagoo ganacsi yar ka sameystay goobtaas ay dad badan isugu yimaadaan. Xuseen wuxuu halkaan imaadaa subax walba oo Khamiis iyo Jimco ah, waxaa nasiib u yeeshay inaan kula kulmo goobtan. Wuxuu ii sheegay inay aad u adag tahay shaqooyinka, laakiin inuu shaqeeyo waxaa sabab u ah waalidkiisa oo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha hawsha guriga ku mashquulsan inuu ka caawiyo shaqada. Sheekadan ayaana dhex martay Xuseen oo cabitaan ku iibinayo halkan. Magaca Xuseen ma qasnaa jirtaa wax ma bartaa habar iskool quraan halka xabna qaad dilinka isma maashaysa dalab maashaysa su'aali si qatina mis jamac Xuseen yaa u badan dad wax ka dad waaweyn ama dad yar tamam waa ay wax la soo kartaa kuwa u badan waaweyn Xuseen dadka wax ka gado kuwa waaweyn ma u badan kuwa yar ka u badan waaweyn ka u badan Sakariya halkan wuxuu ku iibiyaa sambuus, bur, cabitaan, kuwaas oo dadka xeebta u soo dalxiis taga ama dawaasho u yimaada ay ka gataan, iyadoo dadka maraya wadooyinka qaarkood waxa ka iibsadaan wiilkan ganacsatada ah. Sakariya ayaa ii sheegay in Khamiista iyo Jimcaha uu ka shaqeeyo ganacsigan, hooyadiisna ay ka caawiso inay u soo sameyso cunooyinka fudud ee dadku jecel yihiin. School. يدكسي. جمعي خميس. School كي يدكسي. Carruurta shaqeeyo ayaa koriimo maskaxeed u ah sidoo kale waxay u noqdaan barasho shaqo.